maalin wanaagsan saaxiibada ku xiran janalkeena galka media iyo sidoo kale page-keena Facebook ee galka media waxaan warbixinteena maanta ee galka media aynu diiradda ku saari doonaa saacadihii aynu ka soo gudubnay shaqaalihii ugu badnaa ee ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo dalka isaga baxay. Maxay tahay sababta? halkee ayuu xilligan ku sugan yahay Fahad Yaasiin? halkee ayay u safrayaan shaqaalaha xilligan dalka ka baxay iyo kuwa la qorsheynayo inay dalka isaga baxaan saacadihii aynu ka soo gudubnay? maxaa soo kordhay? madaxweyne Farmaajo xilligan qorshe intee in leeg ayuu ka fikirayaa? ma dhaba in khilaafkii ugu cuslaa uu soo kala dhaxgalay madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir? maxaa ka jira in xilligan dowladda shisheeye ay soo farageliyeen kiiska Ikraan Tahliil? xogahaasi oo dhammaystiran ayaan warbixinteena maanta ee galka media diiradda ku saari doonaa, balse marka hore daawade waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo dhahdo barteena YouTube ee galka media. sidoo kale waxa aad like iyo follow ba tiraahdaa page-keena Facebook ee galka media. warbixintana la sii wadaaga saaxiibadiina kale si aan mar walba halkan idinkugu soo gudbino xogaha ka daahsoon bulshadeena. mahadsaniniin. waa tahay haddii aan ku hormarno xog ay heshay galka media ayaa xilligan waxa ay markaa sheegaysaa in shaqaalihii ugu badnaa oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ay isaga baxeen dalka kadib markii kiiska Ikraan Tahliil Faarax xilligan meeshii ugu xumeyd uu gaaray. waxaana sidoo kale xoguhu ay tilmaamayaan in madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xilligan la soo warinayo inuu u cararay dalka Turkiga khilaafkii ugu xumaa uu soo kala dhaxgalay. maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo uu si weyn uga carooday tallaabada ay qaaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, gaar ahaan Fahad Yaasiin iyo Kulanajiis oo iyagu lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo xilligan dalka u horseeday colaad sokeeye iyo waxyaabo horey looga soo gudbay. warar saacadihii aynu ka soo gudubnay aynu helayna ayaa waxa ay markaa sheegayaan in sidoo kale qorsho weyn uu ka fikirayo ra'iisul wasaare Roble, kaas oo caqabad ku noqon kara taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xilligan la tuhunsan yahay inuu xaalku si aada ugu xun yahay kadib kiiskan iyo weliba waxyaabaha soo kordhay. waxaa sidoo kale isa soo taraya xogta ka imaanaysa beesha uu ka soo jeedo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo iyagu guud ahaanba markaa ku eedeynayo in xaalad xun uu xilligan u soo wajahday beesha, gaar ahaan afduubyadii saacadihii aynu ka soo gudubnay ka dhacayay magaalada Beledweyne kuwa oo ay ku kacayeen beesha ay ka soo jeedo Ikraan Tahliil Faarax oo xilligan la rumaysan yahay inay xilligan wajahayaan xaaladtii ugu xumeyd oo murugo ahi iyo sidoo kale falal aan markaa Soomaaliya muddooyinkan dambe looga baran ay ku kacayaan. wararka ayaa sidoo kale xilligan waxa ay tilmaamayaan in qorsho saacadihii aynu ka soo gudubnay ay wadeen beesha uu ka soo jeedo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu fashilmay kadib markii ay ka biyo diideen qorsho ay soo bandhigeen beesha taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taas oo ay beesha gabadha Ikraan ay rumaysan yihiin inuu gadaal ka riixayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waxyaabaha sidoo kale saacadihii aynu ka soo gudubnay aynu helaynay waxaa qayb ka ahi in taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilligan uu dalka ka dhoofay. sidoo kale shaqaale badan oo iyaguna tuhunsan in kiiskan uu lugaha la soo gali doono iyagana ay isaga baxeen. kuwo kale maanta lagu wado inay dalka ka baxaan saacadaha soo socda sida ay xogtu tilmaamayso ilaa iyo weliba maalmaha soo socda. haddaba fashilka iyo weliba dhabarjabka xilligan ku yimid hay-addii ugu sarreysay dhinaca amniga, gaar ahaan midii sirdoonka, xilligan waxaa la rumaysan yahay in kiiskan uu yahay mid markaa lugaha la sii galayo xaalad aad u xun. Rooblena uu markaa ka fikirayo qorshayaal dhabarjab iyo weliba mid guracan ah oo xilligan ku noqon karta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa iyaduna markaa la soo warinayaa inay soo faragelisay kiiskan iyo weliba xogta markaa sheegaysa in gabadhaasi ay dileen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. waxaana sidoo kale dowladda Ingiriiska laga yaabaa inay soo saarto xayiraad socdaal oo ay ku soo rogayso madaxda ugu sarreysa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. sidoo kale Mareykanka ayaa laga yaabaa in tallaabo cad uu markaa ka qaado Kulanajiis oo la rumaysan yahay inuu haysto baasaboor Amerikaan ahi sida ay markaa xogihii ugu dambeeyay nagu soo gaarayaan.
haddaba daawade maxay tahay oo ay fikirkaaga kula tahay halka uu ku biyo shuban doono kiiska Ikraan Tahliil? ma laga yaabaa in qoyska Ikraan ay cadaalad helaan? fikirkaaga waa inoo muhiim. qaybta hoose ee commentiga inugula wadaag, warbixintanna u sii sheergaree saaxiibadaada kale si aan mar walba halkan idinkula wadaagno xogaha degdega ee ku soo kordha kiiskan. mahadsanidin.